Saddexdii maalin ee ugu dambeysay magaalada London bangiyadeeda waa la dhacayay. Tuugadana way baxsanayeen marka Dembibaaro Maalmo ay la soo xiriireen booliska si uu uga xaliyo kiiskan waxayna u sheegeen in maalintii Isniinta la dhacay bangi ku yaala wadada 61, maalinkii Talaadadana waxaa la dhacay bangi ku yaala wadada 72, maalintii kale Khamiistana waxaa la dhacay bangi kale ku yaala wadada 84. Ee adiga ahaan isku day inaad aqoonsatid bangiga la dhici doono maalinta Jimcaha wadada ku yaalo. Monday oo ah maalinta Isniinta waxay tir ahaan ka kooban tahay 6 xaraf, waana maalinta koowaad ee usbuuca marka dhankooda loo fiiriyo, waxaana maalintaas la dhacay bangi ku yaala wadada 61. Wednesday oo ah maalinta Talaadadana waa maalinta labaad ee usbuuca waxayna eray ahaan ka kooban tahay 7 xaraf, waxaana maalintaas la dhacay bangi ku yaala wadada 72. Thursday oo ah Khamiisna waxay ka kooban tahay 8 xaraf, waana maalinta afraad ee usbuuca waxaana maalintaas la dhacay bangi ku yaala wadada 84. Marka Friday oo ah Jimco waxay ka kooban tahay 6 xaraf, waana maalinta shanaad ee usbuuca, marka waxay ka dhigan tahay taas in la dhici doono bangiga ku yaala wadada 65. Dembibaaro Maalmona wuxuu si toos ah u tagay bangiga ku yaala wadada 65, wuxuuna soo qabtay tuuggii, sidaasuna xabsiga ugu dhaadhiciyay.